نبي الله إسرائيل كوابتر صدا بد دين اليهود ولي هستان بدوا إسلامي بدوا كريستو أمامي بدنوا ملحدين انتبهوا إليه dadkii la odhan jiray reer banu Israa'iil kuwa hadda jooga qaar badan oo nabi Israa'iil ku abtirsan baa jooga oo waqti dambe diinta soo galay nimanka indha buluuga leh intooda badani asliyan maaha walidalik Israa'iil waa wadanka quray mamnuuctay DNA in dadka laga qaado waayo wadadaan isku meel ka imanin DNA in laga qaado lama ogola Israa'iil كيهود نمما هو حل يسكوها يا مركب كوان وين مستعمر محتل مستوطنين وين يدد دلال كلك سود دولي او ضد مسلمه قبصدي او دولكودي كو هيستا او ka qaaday ay yihiin inaad kuwa qirato marka salaad idin ka dhow maalintii dhulkan la idin ku leeynayay يا قحبين دول عادي حريا قحنتك جوكتين هدي انت قبائل كلام الدولة ده كلام يهود ما عد كلام انت اللي صار ربعية هرقيسية بربرية انت اللي مدلتك شيو ونولي اطرفاني صوتك قال لما يسيد لكي يرى هذا kuwa la soo raray meesha la dejiyay xaq bay u leeyihiin oo dawladda wax rumaysanay maxaad ka rumaysanaan lahayd adigu cid kale ka fikireen meel kalena ha ka raadin maanta qoxontiga joogtay hadii lagu soo weydaarto burcay hargeysiye berbero inta ama yahuud la soo dejiyo ama dad kale la soo dejiyo ninka yiraahdo waan u ictiraafay inay leeyihiin oo waayo قرمها الدولة دي عرب عشرة أيوه والعربي إلهي كتاب كيسكو مرة قبته كاجا من الدواء عربي قال يا مسلم بويلاذي عربي منافق يا مسلم بويلاذي عربي وحول بويلاذي هذا هو قياس محاطكم يسنان الله دول عد مالتها جوكتي هذه تندد للدجيو ولما الله يرى هذا هو اللور رميسيه لك هذا مركا وانا اعترافي ووحنا اعترافي إن هرقيسية برعقولة اللي سودتشي إليهين سيدا كرهو ميسران الله يدون بلغار رميسية أيها الأحبة سياد بر ووحد المني هذا نوحو قرطي ظلمك محتلك أما مستعمرك أما مستوطنك إنانو أقبلين ولذلك هو يان سميدي الساوث أفريقيا كواسي ولد قالمي حولد قالمي داد مدو ونن عادين تبسو دولي ودول دقي ومستعمر بولها لغا كعيو وانو كوغر لها داد لظلمين يينو يدهد يان لظلمين وكوغر لها adigu hadaad hiilin kari weyday waxba u qaban kari weyday inaad tiraahdo iyagaan rumaysanahay oo aad wadaadda meel ka daydayda iyo war kale iyo beri baa nabi maxamed qole heshiis la galay iyo war nabi maxamed ku heshiiska la galay isaga ku hoos noolay ahlu dhimma bay ahaayeen heshiiska markay buriyeen maxay ku buriyeen gabadh muslimada ay qaawiyeen bas reer banu qaynuqa saddex qabiilo yahuud oo nabigu heshiis la galay saddexda mar uu la dagaalamo oo ka saaray wuxuu uga saaray gabadh muslimada bay suuqa soo gashay dahabka lagu iibiyay meelaha wax lagu hayo markaas ay qaawiyeen nin muslim ah taagan baa kii dilay dabeetana waa la buriyay ahdigoodii waa la buriyay aw kullama aahadu ahdan nabadahu fariiqun minhum عهد من كاكا قنطمي إلى يمالك تيمادين مجرو بلنا يقالين أنا يبوريننا مجرو كي نبي محمد نوي بوريين فقد دليل كردقان يا نبي محمد بالله قالي ويبوريين مشركي العرب والله قالي هشيس نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام
laakiin qabaa'ilkii heshiiska kula jiray markay ku soo duuleen wuu buriyey. wain janaxuu lisalmi fajnax lahaa ayaa asal u ah heshiisyada. wain janaxuu lisalm, hadday nabadda u weecdaan adna u weeca baa ilaahay yidhi. islaamku dagaal uu iskaga jira ma laha. hadday iyagu nabadda u weecdaan adna nabadda u weeca baa ilaahay yidhi. kuma odhanaya netanyahu waa nabad dunida u weecday. ayuha alaxiba, awqaafu ghaza 1,109 masaajid bay dumiyeen. hadda 1,109 masaajid iyo 3 kaniisadood. ayuha alaxiba, 315 qof oo ducaada bay dileen. 200,000 oo muslim ah iyo dadkii kale meesha deganaa isugu jiray ayay waxay dileen iyo waxay dhaawaceen ka dhigeen, waxay aakhiro u direen. 2 milyan oo qof ayay gaajaysiiyeen. 91% oo dadkaasi ka midi alamn alghidaa'i ma jira bay leeyihin. waa gaaladu say sheegayso, waa taqaariirta gaaladu ay ka qorayso. gaalaa ka qaylinaysa adduunka, wixii gaal joogay ayaa ka qaylinaya. ghazi maalinta idinku qaxdeen jaamacada maydan lahayn. ghazi 19 jaamacadood bay lahayd. maalinta idinku qaxdeen iskuullada lahaydeen oo dhammi 100 iskuul inaanay gaadhayn ama 200 iskuul baa laga yaabaa. 800 iskuul baa meesha ku yaalay. wixii waa la tirtiray, waa la dumiyey. albanki duwali ayaa wuxuu tilmaamayaa 18.5 bilyan waxa lagu qiimeeyey albiniya taxtiya, wadooyinka iyo waxay dumiyeen oo qura ma aha. albiniya taxtiya baa intaasiya. ayuha alaxiba, muslimka sidaa loo gelayo haddaad wax ka dhicin kari weyday, haddaad u gargaari kari weyday, haddaad waxba siin kari weyday, inaad tidhaahda ka u gelaya oo dhulkiisii haysta. soo ma ogid dhulka muslimiinta laga soo qaaday dad baa weli furayaashoodii sita, furihii gurigiisa sita. ninka furihii gurigiisa sita inaad tidhaahdo ka ku jiraan rumaysanahay inuu dhulka leeyahay, aakhir xaggee gelaya? adduunka waa la iska noolaan karaa. si xaggaad u socotaa qof walowba, qofuuna qof kale ha ka fekerin. adigu maxaad ilaahay la hortegaysaa? adigu maxaad ilaahay la hortegaysaa? ilaahay ha loo toobad keeno oo dembi dhaaf la weydiisto. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال تعالى في محكم تنزيله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله إلهي وحوليه نك إلهي كعب صده إلهي جدوى وبحية. هدي له الظلميي والظلم ترسانيسو، ama mid hore ha ahaada ama mid dambe ha ahaada. haddaad dulmi tirsanayso, ma muslim kaloo dulmidaaba lagaga baxa dulmigaa tirsanayso, bise xal kale la raadiyaa. haddaad adigu dulmanta o aad sheeganayso in lagu dulmiyey, cidday doonta ha noqoto cidda ku dulminaysa. soomaaliya cidday doonta ha noqoto, soomaaliya dhe, carab dhe, waxaa doonta dheh. haddii lagu dulmiyo, ma miskiin kaloo muslima
oo dulmiga adiga ku haysta mid ka adag uu haysto